nabigu calayhi salaatu wasalaam laadhuuda waa xaaraantinimay man laciba binnard fakaannamaa gamasa yadahu fii laxmi khinziirin wa dami qofka laadhuuda ku ciyaara xadiidku muslim buu ku jira waa saxiix qofka laadhuuda ku ciyaaraya wuxuu la mid yahay doofaar uuskii iyo dhiiggii iyo hilibkiisa mid qacmaha la galay buu la mid yahay laysa lana maalu saw mahmaa xunna nooma sugnaan sida nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu ka qaateen inay macsiyo tahay faqad casa allaha warasuulah man laciba binnardashiir waa la mid waana laadhuuda weeye waa dhagax yar oo afargeysa oo lambara ay ku yaalaan lambarada lagu nasiibsanayo waxaan ku nasiibsaday 3 6 4 waa sida hadda dhacda lambar 6 baa ugu badan waa la luxaya dabadeedna ku nasiibsan lambarka ku soo baxa ayaad ku nasiibsanaysaa waa laadhuudanaynu hadda naqaano kuwa kale na waa la mid oo waxa weeye bisha ramadaan jaaniskeeda in laga faa'iidaysta la doonaya wayasuddakum can dikri illaahi wa can as-salaa waxa salaada iyo xuska alle iyo quraanka iyo cibaadada ka mashquulinaya waxyaabahaas oo dhan lama ogola dadkuna way u sii tafaxaytaan war laadhuug inoo sameey dubnad xagee laga helay turubkii diyaar maya waxaasi diyaar maya waxaasoo dhan shaydaan baa wata oo doonaya cibaadada inuu ku seejiyo walibana dadka waxaa ku mashquulsan ma ilaahay bay xusayaan kaafiya kala dheeri wey dad ilaahay xusaya maaha waxaa looga jeedaa wakhtiga in lagu dilo in la ysku dhaafiyo waa wakhtigii cibaadadoo la dilayo marka waxaan leenahay taana in laga waantoobo ayaa fiican insha allahu tacaala wallahu aclam